waxaan aan kuu galaa waa ani jacayl adi aan kuu qabo daris lacabti muujeeda waxaan kuu soo galo waa jacayl adi aan kuu qabo ani adigana ma arag magaciisu waa Cabdulfataax hase ahaatee dadku waxay u yaqaanaan Iidaadi waxaana ka mid yahay majaajilistayaasha Soomaaliyeed ee dhawaanahan soo caanbaxay meesha waxaan ka hadlaynaa foolxumada iyo quruxda naa quruxda haddaad rabto wajaha waa la halahaato dheeraan ogaadeen halahaato carraga dhulbahanto aqli ma jarteen daba habargidib lagu jajeelo naa foolxumada haddaad rabtane waji murursada halahaato alool abgaal lagu gaal jecel shita la waa shaqal u doon intaas haddii aan dib u milicsano taariikhdiisa nololeed waxa uu muddo dheerba ku noolaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya sababta magaca Iidaadi ugu baxdana waxaa lagu sheegaa in Iidaadi shaqo la'aan ba'an ay ku haysatay magaalada Nairobi maciishada magaalada Nairobi oo aad u sareysa iyo bagamuudnimadiisa awgeed ayaa waxa uu ku qasbanaaday Iidaadi inuu shaxaad tago halheeska caanka ay u adeegsan jiray shaxaadka ayaa ah Iidaadi oo macnaheedu yahay Iidib ama isi oo la af magaaleeyay xilliyada qaar marka uu wadooyinka magaalada uu marayo ay dhalinta qaar ka xaraabaysan jirtay ama ka shactiraysan jirtay Iidaadi oo ah nin aad u furfuran qosol iyo farxadna badan ayaana marnaba ka fiirsan erayada uu ku hadlayo isagoo mararka qaar wax ka sheegi jiray qabaa'ilka qaar ee Soomaaliyeed si loo qoslo abgaalan ka hadlaynaa islaanta waa amooro weyn digaarka iyo aroosiha ya are kutubeeyay are gambar gaabanaan kugu fadhaa ha anna geed dheeraan kuu fuulaa ha ama shakhsiyaadka caanka ah oo qaarkood isbar yaqaaneen عبد قط قاقا شكيتي اسكلاجي اوكي dad badan aa bidaar leh baasha hamarsadana haday tid u soo bixi weysaa salaamina Iidaadi ayaa ku soo laabtay magaalada Muqdisho isagoo ku caanbaxay hadallo qosol iyo qaraaxo leh waxaana Muqdisho ku soo dhaweeyay dhalinyaro badan oo u riyaaqday majaajiladiisa Iidaadi oo xilligii hore ay ka dhacsanaayeen ilka hore ayaa haatan ilka sameystay walow magaca Iidaadi uu muujinayo Iidib am isi ayaa haatan waxa uu u muuqdaa in uu ka gudbay marxaladaas waxaana marayaa iminka in barnaamij kasta uu ka qayb galayo ugu yaraan uu qaato 20 ilaa $25 isagoo waliba gorgortamaya